Somaliland ayaa sheegtay inay sanadkan culays xoog la saartay sidii ay wadamada Midowga Afrika oo uu shirkoodii sodonaada ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ay uga dhaadhicin lahaayeen qadiyada madaxbannaanida Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Al-Shire oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa xusay in natiijo wanaagsan kala soo laabteen magaalada Addis Ababa. intii aan joogay dalka Itoobiya oo ku beegnaa sidii markii hore baan sheegay xilligii shirkii AU-da waxaan la kulmay safiirro fara badan kuwa Afrikaana iyo kuwa Ajnabiga iyo kuwa Yurubiyaanaba waxaan la kulmay wasiirro fara badanna waan la kulmay waan chance baan u helay qaran ballan toos samaysanay iyo qalab munaasabada sugnimiba iyaga laftigooda waxaan uga warramay qadiyada Somaliland khaasatan qadiyada ictiraafka iyo geedi socodka aynu ugu jiray dimuqraadiyadda xaaladda imka waddanka ka taagan qaarkood iyo laftii waxaan uga warramay xaaladda abaaraha haddii nagu soo foole iyo lafteeda sidii mataqaanaa bal loo tixgelin lahaa inooga caawin lahaa madaxdaan la kulmay oo dhan runtii iyaga laftigooda waxaa mar kale iga soo baxday yacniga heerka mataqaanaa ay Somaliland ay ka taagan tahay iyo wanaagga laynagu yaqaano waxaa ii soo baxday runtii in Somaliland iyo Soomaaliya imkaan la isku khaldin inay kala yihiin laba wadan midba wax ku suntan yahay inagu waxaan ku suntannahay nabad baynu ku suntannahay dimuqraadiyadaynu ku suntannahay waxa aad iyo aad runtii sumcadeena kor u qaaday doorashadii aynu galay sanadkiina soo dhaafay dabayaaqadiisii oo meel walba ka dhacdo tusaale u noqotay maxayada caalamka oo dhan khaasatan Afrika u noqotay sidii wanaagsaneed ay noogu dhacday runtii horta waxa iska leh amaanteeda ilaahay barto mahaddeeda iska leh laakiin amaanteeda waxa iska leh dadka shacabka Somaliland oo dhan dadku runtii way u dhigan nugul yihiin qadiyadeena way u soo jeedaan oo taas kama dahsana way ka wada warhayaan sharciyada ay noo leenahay taariikhdeena in wadanaynu ahaan jiray gaar ah inaynan ahayn gobol ka go'ayo wadanaynu ahayn. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo aan weydiinay bal waxa uu kaga jawaabayo dadka ku dhaliila in aan ku habboonayn wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxa uu yiri aniga dhaliisheeda horta qof walba xil hayaba kulli waa la dhaliilaya oo dhaliishu xilka la socota taas wax ma taqaanaa curshiya maaha laakiin waxa isleeyahay runtii labadii sanadood joogay waa dadaash waxaana ka markhaatiya waxyaabaanu ka qabanay wasaaraddan gudaheeda iyo maxaan danjiriyaasheena dabadeeda iyo maxaan ciddii aanu la kulannay imika xitaa socdaalkaygaan haddaan ka imiyo keliya intaasoo qof oo aan la kulmay ida lafteedu waxay ku tilmaamaysaa runtii dadaalka aan wadnay ku tilmaamaysaa marka waxaan runtii aan qabaa labadii sanadood ee soo dhaafay inaan dadaal aad iyo aad u badan sameeyay saacado badanna runtii aan geliyay maxaan idhahdaa inaynu dee kor u soo qaadnay maxaan idhahay sumcadeena waxa badee ku dalila dadkan waan arko hadiya jeedaad ku arkay Facebookyada inta filaya mar aan weydiinay bal sida uu arko warbixinta uu ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka jeediyay golaha ammaanka waxa uu yiri warbixinta ergeyga qaramada midoobay iyo wuxuu naga yiri horta dee qofku wuxuu doono wuu oran karaa laakiin xaqiiqdu waxa weey doorashadii maanta dhaweyd aanu galay dabcan doorasho dee boqolkiiba boqol perfect ma jirto laakiin sidii looga markhaati kacay iyo sidii wanaagsaneed ee noogu dhacay waliba ma kala tixgeliyo duruufteena kayna haysto aynu nahay wadan yar oo saboola oo aan la ictiraafsanayn wuxuu noqday wax runtii lama filaana oo caalamka oo dhan la yaabo oo tusaale noqotay marka horta horumarkeenu sameynay dhinac walbaba waa wax dee la arki karo oo la wada arkayo qof kuma masixi karo hadalkiisa qofna hadalkiisa kuma masixi karo sidoo kale waxa xusay in intii uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isla markaana ay ka wada hadleen qadiyada tukaraq madaxweynaha Soomaaliya farmaajo lama kulmin anigu laakiin waa kulanay wasiirka arrimaha dibadda si gaar ah runtii waxaan uga wada hadalay laba shay mid wuxuu ahaa wada hadalka dib u bilaabistiisa midna wuxuu ahaa arrinka tukaraq inaku ciidankeena wadiisa dogeedeenba wuxuu gaaray tuulada tukaraq ayuu gaaray tuulaas waxa ku taala Somaliland inaku xadkeena maaha midaynu inaku aynu dooranay iyo midaynu jeexnay toona waa mid caalami weey ala kulli xaal marka sidii loo xaq dhowr lahaa xuduudaha loo xaq dhowr lahaa
oo aan la isugu dhaceen oo aanay dhibaato halkaa uga dhalan mataan uga bilaabanteen waan ka wada hadalay in nabadda la dhowro oo la iska jiro wixii dhibaato keenayana waan islaaf karana waan isku raacnay runtii gunaanadkiina waxaa xuseyn heshiiska Khaatumo iyo Somaliland qodobadii ugu horeeyay ay maalmaha soo socda fuli doonaan arrin ku saabsan Khaatumo waa run Khaatumo heshiis baynu galay 13 qodoba 13 qodob runtii waxaan qabaa in intooda badan aynu already maxay wax ka qabanay laakiin waxa jiray laba qodob oo ahaa qodobka qaramaynta ciidamada Khaatumo oo aan wali inoo fulin kaas waxaan filayaa maanta ilaa berito ayuu hordhiciisu fuli doonaa insha Allah najxadan onaye oo cable TV hargeysa